waxaan kaa wareysanaynaa marka koowaad wixii ka dhacay Laascaanood iyo Soomaaliya gebi ahaanba ku soo dhawaadee TV-ga. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Wararka wareysi ma aha arrinka macna serious ah. Haye. Salaadii Jimcada dad masaajidka ku dhex jiray xabad ugu tagtay. Waxaan leeyahay Muuse caruurtaadii guryo nabad ay ku dhex fadhiyaan. Dadka caruurahooda laynaysa jooji. waddanka nabadgelyadu wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa. waxa weeye fitnadu ku koobnaan mayso Laascaanood iyo xaafadaheeda. meel kastay gelaysaa dhiigga bani aadamka ninkii daadiyey gurigu tago caruurtiisa ugu tegaysaa. waxa weeye wiilasha isaaq ee hubka sita ee Laascaanood jooga waa inayna qof bani aadam oo Laascaanood u dhashay aanay dilin. annaga godob ha noo keenin adeer ilaahay haddaad taqaanaan. waxa weeye maamulka dowladda meesha ka jirta iyo askarteeduna waa inay dadka ilaaliyaan. waa maxay xabaddan la iskala ordayo dadka loola dhacay. dadku shacabku waxay doonaan bay sheegi karaan way mudaharaadi karaan. adduunku free well baa la joogaa. waxay doonaan calankay doonaan ha qaateen. dadka ah xukumaysaan cadaalad ha heleen dhiiggoodana ha banaysanin. waa ka soo horjeednaa annagu magaca isaaq iyo magaca direed iyo magaca somaliland iyo magaca soomaaliya waa annagu ku hadlayna. dhiigga shacabka soomaaliyeed meeshu joogaba maamulku doonaba ha noqdo dowladday doonto ha noqoto in la banaysto waa xaaraan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baan kuu salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.